qaranka ciddii waxyeelaynaysa waqtiga inuu midoobi lahayn weeye waa waqtigii aynu midoobi lahayn qarannimadeedii waa waqtigii aan loo baahnaa inaynan kala furfurmin aynu dad isku xidhan noqonno aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa nabaddaanu nimi dhaqsaa loo bilaabi doonaa allah idin sharfo sidaad noo sharafteena noogu soo baxdeen allah idin sharfo waxay la tahay hadda goor gaaban waqtigeedna gaaban waynu iswaraysan doonnaa waan idiin joognaa arrimaha ugu muhiimsan aan u soconnay waxa weeye arrimihii nabadgelyada degmada Ceelafweyn inaynu dhammayno wax badan bayna ku soo noqnoqotay colaadda Ceelafweyn maanta waxay gaadhay waqtigii la kala bogsan lahaa waqtigii aan colaadan bayna ku soo noqoteen waqtigii aynu noqon lahayn dhul iyo duurkeed waqtigii aynu midoobi lahayn qaranka ciddii waxyeelaynaysa waqtiga inuu midoobi lahayn weeye waa waqtigii aynu midoobi lahayn qarannimadeedii waa waqtigii aan loo baahnaa inaynan kala furfurmin aynu dad isku xidhan noqonno aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa nabaddaanu nimi dhaqsaa loo bilaabi doonaa dhaqsaa loo wada fadhiisan doonaa dhammaan beelweynta habar jeclo waxgaradkeedii hadday cuqaal tahay hadday salaadiin tahay iyo hadday tahay guddiyadii dhammaan beelaha garxajis dhammaantood waxay u imanayaan hadda maalmaha soo socdana shirkii nabadayntaa furmi doona waxaa loo baahan yahay qof waliba inuu halkiisa ka guntado gabdhaha qiimaha badan leh waxaa laga codsanayaa inay guubaabada iyo wanaagga iyo soo dhowaynta iyo dhallinyaradii dhammaantiin aad ka shaqaysaan ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu colaadda eheliga ayna ka qaado waxayna ku soo socota doorashadii wakhtigeedii baynu taagannahay taana waynu u midoobi doonnaa dhammaan habar lamaan oo dhan insha allah way u midoobi doontaa doorashadana insha allahu tacaalaa aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waynu iswaraysan doonnaa waan wada joog